dib u milicsano taariikhdiina soo martay waa inaan dib u milicsano dhibaatadiina soo gaadhay iyo halgankii dhibaatada inugu soo gaadhay inaan dib u milicsano ayaa waajib nagu ah haddaan taa'eena milicsanin oo raggeennii halaagsamay ayna milicsanin gabdhaheennii ayna milicsanin hantideennii la duusiyey ayna dib u milicsanin wali halgankeennu runtii wuu dhutinhayaa marka waa inaan taariikhda dib horta marka hore aan ugu milicsano qodobka labaad ee rab inaan dul istaago waxa weeyaan halkeen hadda maanta aan maraynaa halgan dheer baan soo maray meesha aan maraynana waa inaan maanta aanu xusuusannahay oon ognahay levelkeenna meesha uu gaadhsiisan yahay maanta maasha aan taagannahayna ayadana waa arrin waajiba inaan ogaanno ma meel hoosaan taagannahay ma meel dhexdhexaadaan maraynaa ma meel u baahan in la dhammaystiraan maanta maraynaa waa inaan ayadana aan ogaanno haddeennan ogaanin meesha aan marayna ayadana wali runtii waxaanu ku jiraa yani waxayna haysta dib u dhac baa markasta bayna qabsanayo waxaan rabaa inaan tilmaamo meeshaan maanta marayno waxaanu maraynaa maanta guriga markii la dhiso oo dhagaxa la taago wuxuu u baahan yahay jiinkadii iyo alwaaxdii iyo albaabadii halgankeenni maanta waxaa u dhiman jiinkadii la saari lahaa iyo albaabihii lagu xidhi lahaa baa u dhiman maanta inta kale uu dhammaystirmay halganka dhagaxiisii wuu dhammaystirmay in la dado oo la hadhsado oo la seexdo oo la manaafacadsado ayaa inoo hadhay taa waa inaan xusuusanno maanta oon ogaana halgankeennu meeshuu marahayo halkaasaan maanta maraynaa meeshaasaan maanta taagannahay marka waa inaad gacanta gawsdambeedka aad ku qabsataan inaan halkaa marayna maanta qodobka labaad aan u gudbaaya waxaa weeyaan walajeeddada iyo hadafka aan leenahay muxuu yahay ee loo soo baaba'ay waxa aan rabna muxuu yahay maxaanu higsanaynaa maxaan u soconnaa maxaanu naf iyo maal aan ku soo weynay waad garanaysaan tilmaan oo ma baahno waa in ummaddeenna aayaheeda xorriyaddeedii mustaqbalkeedii iyo waxa ay rabtay si kaamila inay u gaadho weeye waxaan raadinayna innagu in badan baa ku soo nafwayday in badanna way ku nafwaayey in badanna way u rafaadaysaa intaasoo dhan marka aan ka hadalno saddexda qodob ee marka haddana u ah asaaska muxuu yahay waxaan u baahannahay in la helo tadxiyatu lmaal tadxiyatu nafs tadxiyatu lwaqti saddexdaa haddayna helin wuxuu noqonayaa halgankeennu mid naafa ah oo dhutun ayuu noqonayaa waa inaan nafteenna hurro maalkeenna inaan hurro wakhtigeennana inaan hurro saddexdaa qodob haddii la helo halgankeennu waa dhammaystirmahaya jiinkaddeenna waa la saaraya insha allahu tacaala waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo kelimadayda nin halgama ah oo adduunka laga yaqaano oo waddankiisu hadda hor yahay baa keligiibaa waddankiisa odhaahdiisii iyo muuqaalkiisii iyo hal kelimo oo uu yidhi yaa waddan dhan oo 700 oo milyan ay degan tahay buu ku xoroobay walu fiirsada walaalayaal Bangladesh maxay ku xorowday waxay ku xorowday 9 milyan markay naf baxday ayay Bangladesh xorowday dib oo mayna noqonin waxa la yiraahdaa taariikhda markii la xusayo 9 milyan baa la yiraahdaa 9 milyan markay ka dhimatay oo ku nafweyday ayaa Bangladesh xorriyadaas ninka halgamaaga ah markuu halganka ku jiray buu halgankiisu qiimeeyay wuxuu qiimeyn jiray dadkiisa taakulada wada qaabkay u socdaan iyo qaabkay wax u bixiyaan maalin maalmaha kamida ay wuxuu arkay ninka halgamaaga waxa la inta badan furinta kama bixi jirin ba wuxuu arkay dadkiisi taakulada waday ee xubnihiisa ahaa oo socodkii uu ku yaqaanay badalmeen buu arkay wuxuu arkay ayagoo istaba socda xooluhu markay abaar ku dhacdo ama ay oomaan socodkoodii iyo wixii ay horaan lagu yaqaanay way bedelmahayaano way istaba soconayaan way istaba qulqulhayaan talaabaduna waa ka xumaanaysaa wuxuu arkay dadkiisii oo talaabadoodii iyo socodkoodii iyo taakulodoodii uu istaba soconayo waagi horena socodkoodu si kale ayuu ahaa marka waxaan islaahay waxaan u soo qaadanayaa aanu socodkii iyo talaabada hadda aanu bedelno waxa ii muuqata talaabada siyarada socod inaan ku soconno aanu bedelno aan ka bedel sida insha Allah taala waxaan islaahay in naf iyo maal wixii lagu waayay waxaan kaga samirnay inaan maanta aanu taaganahay runtii madaxda jooxo wax badan bay ogtay oo inaan hadda fagaarahan ka sheegaynin guul badan bay ogtahay runtii
قول بدن بسوه يتي قول بدن بأنه قعنت كوهنا إن شاء الله تعالى ماذا هذا شوحه وحي موجسة جاسنينه ميل أضاقو عريدة أبي كجرتا هل كي يوحي ربتنا ويكسر سوينا كسرتين تبيد بدن بقول كي بزيدتن وأنا ولا كسر دبنكي يا مريجيه يا سلسلته اللي نود هذه ماذا هذا شوحه أورر كذا يا هل كي ويكب حزرونتي بنان كاسة ما تلاقي يعني وعن أباهنا مركا qodobada laga soo hadlay oo dhan ee umnuhu ka soo hadleen inaanu kaaba gelin intaas ay noo hadhay in badan baa ii muuqata oo qoriga soo siday oo dhaawaca oo laxaadla oo haddana u taagan waxa ay ku soo naafoobeen ay ku soo dhaawacmeen inay hormariyaan runtii aad baan runtii yaan u qayrooday qodob eraygii ay gaari ku hadashay ee tidii wiil baa intuu kaajay baa afkiga ka shubay kumaankum baa intay kaajeen baa laga shubay oo biyo iyo nolol looga dhigay oo maanta nool kuuna way shiideen halganka dhibka loo soo maray waa mid xaq ah waa mid janno lagu tagahayo waa mid ilaahay loogu dhawaanayo waa la socoteen halgankeena dhibaatada uu soo maray waxa dagaalina la galay badan oo awood leh waxa lagu soo gabaday shaati diimeed baa lagu soo gabado waa gaaladii nimankan hadda sadaqa laba siin karo waxa uu soo bambaxday oo jilbaha u aastay culimadii jooxo ayaa kradiday oo diiday oo masalada ka hortagtay inay beenaleeyeen khayraadka wadankeena rag baa taariikhdiisa waa la suntay geed aan sumad lahayn malin dhagaxan suntanayn kuma jiro wiilo xisaabsan yahay dhagaxa reegaadeen iyo wiilo xisaabsan yahay geedka reegaadeen iyo uu noo xisaabsan yahay ugaadha reegaadeen iyo dadkeeduna uu noo xisaabsan yahay xuduudda reegaadeen iyo Soomaaliya waa naqaanaa xuduudeena waa noo xisaabsan tahay tirakoobka inagu aan nahay waa naqaanaa anagu wax uu dad maan waxba aqooninay Soomaal uqeen tirakoob ma ah laakiin waxaanu haynaa tirakoobkeena waa naqaanaa xuduudaheena waa naqaanaa ugaadheena iyo dadkeena waa naqaanaa halganka wixii ku soo baabaayna taariikhdiisa waan haynaa tirakoobkiisana waan haynaa wana soconaya insha Allah ta'ala maanta uu noogu dhow yahay meel dhow maanta taagan yahay waxa loo baahan yahay marka inaan naf iyo maalba aan tadxiya aan sameeyno waqtiga inaan urro hantidan inaan bixino insha Allah ta'ala hantidan marka aakhira loogu dhawaan ilaahay baa loogu dhawaan jannaad ku heleysaan daliilkeedii iyo waad haysan aayaadkeedii iyo tusaalaheedii dhowr iyo 10 sano ruux aasana sida quraanku sheegay xadiista oo jidhkoodii oo badbaadan oo carra inuu cuni banaanka la keenay taa daliil waxay u tahay halgankan ku jiray inuu xaq ahaa waa halgan diin lagu badbaadinayo ahaa halgan wuxuu ahaa ummadda xorriyadooda lagu badbaadinayo halgan wuxuu ahaa gaal iyo meesha laga qaadayo ummadda waa halgan la rabay in ummaddu ay hesho xorriyatul qowl inuu hesho halgankeenu ahaa kaana ilaahay baa loogu dhawaanay rabbi subhanahu wa ta'ala marka insha Allah ta'ala waxaad ku amaanantiin jooxo runtii shirarka iyo muraalkiinu iyo wujuudiinu waa mid qurux badan runtii farx gelinis kii hore haduu ahaa iyo shirkan ba haduu yahay iyo kuwa kale in badan ka qayb galay ummaddu hal meel la isku keeni karo inta imaatay inta kale waa silsilad isku xidhan jooxo waa silsilad isku xidhan ka maanta shirka ka maqan iyo mid ka soo fadhiista waa silsilad isku xidhan in yar oo imboorkii la iska afuufay inoo hadhay insha Allah ta'ala waqtigan ilaalinaya aad baan u mahadsantiin wujuh qurux badan oo nuur ka muuqdo oo hadaf ka muuqdo oo la jeedo sax ay ka muuqato una haya dadkoodii dhibaatada soo gaadhay halgankoodii inay gacanta ku dhigaan rama midhiisi yaa maanta meesha isku yimid ilaahina uu idinku guulanaya rabbi subhanahu wa ta'ala ogaadani ha xaroob ha guulayso faafana ha israacdo jooxo ha israacdo